qofna hadalkaaga ha ku dilin oo ha ku dhaawicin, qofna ha ku ceebayn wuxuusan awoodin, sida inaad ku ceebayso abuuris Ilaahay u abuuray amaba u sameeyey. Qofna hadalkiisa iyo luqaddiisa ha ku ceebayn wax adiga kula qurxoon ee dadku u arkaan ceeb iyo foolxumo, waxaadan adiga ceeb iskugu arkin ay dadku u arkaan ceeb. Qofna asalkiisa iyo qabiilkiisa iyo nasabkiisa ha ku ceebayn. Bilaal al-Xabashi radiyallahu canhu wuxuu koray Kacbada, hoostiisana waxaa joogay Abubakr as-Siddiiq iyo Cumar bin Khadaab. Bilaalna halkaas ayuu ka addimay iyadoo ay joogaan saxaabada kuwii ugu waaweynaa iyo Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Qofna ha ku ceebayn oo ha ku foolxumayn wuxuusan awoodin. Innagaba markaan dhalanaynay ma aynan dooran hooyo iyo aabbe midna, xitaa diinta aan haysanno ma aynan dooran. Qofna ha ku ceebayn inuusan diintaada haysan. Annagaba ma aynan dooran diinta aan haysanno. Haddaan qofkaas diintiisa haysan lahayn, waxaan kula dagaalami lahayn inuu diintiisa ku jiro. Diintu waa hanuun, Alle ayaana ku hanuuniya qofku doono.